aad u farxad badan waxaa jiro waxaan dareennay in maxaa tiraahdaa imtixaamaadka la saxaayay maanta aan ka noqono qayb annagoo bulshada rayidka iyo macallimiintii iyo iskula jirno maxaa tira culamaa u diinki dawladda waxaan leeyahay gobolka banaadir waxaan leeyahay aad u mahadsan yihiin marka horeyso shaqo fiican ay qabteen sanadka dambe ka sii fiican yahay way ka sii fiicnaanayaan tayada caruurtane waxaan rabnaa in aad loo dhiso imtixaan waxba ma sameynaa imtixaan waxa yimiday qofka u dambeeyay marka u dambeysay waa laakiin waxa ka horeeyay ilmaha in la dhiso aniga maam zahar ahaan waxaan ku waaninayaa macallimiinta dugsiyada dhigo siiba dugsiyada hoose ee dhexe in ilmaha soo dhisaan ilmaha la soo dhiso ayagana lacagta ay qaataan xalaal ha u noqoto annagana dad fiican ha noo soo baxo waalidiinta iyo isku xirnaadaan waa ku darayaa gobolka banaadir waxaan leeyahay haddii imtixaanka naga dhamaado in waalidiinta degmo kastaba iskoolaad ku yaallo mapping aan samayno ogaano amnaga iskarin marka waxaan maanta ku faraxsanahay in nuurta ila taagan tahay oo gabar Soomaaliyeed ah u dhibtootay maxaa tirada ilmaheeda waxbarashadan ay ka fiican yihiin ilmaha kale aan dhihi karo ayagii kolejoonka ilmaha ku jiro markay xoog la saaray waqtigii dheel lahayeen waxaad ogaataan ilmaha markay jiraan 5 sano 4 sano waxay u baahan yihiin dhismo maxaa tira dugsiga hadii la geeyo hadii uu loo qaato cuqdo ka qaada uu ka tagaa dugsiga waxaa la rabaa asaga ruuxiisa inaan bedelno insha Allah shaqada soo ku shaqeynayo ka bacdin ilmaha ay yimaadaan ayagoo tarbiyad haysto ay galaaska koobaad bilaabaan saas ay ku socoto marka qeyra idin dhaafay gobolka banaadir waxaa leeyahay aad u mahadsan yihiin